السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maxay noo dhaawacayaan dadka aan jecelnahay? maxay noo dhaawacayaan kuwa dadka inoogu dhow? maxay noo dhaawacayaan kuwa aan u malayno inay dadkuba inoogu dhow yihiin? maxay noo dhaawacayaan kuwa aan farxadooda sabab u noqonay? maxay isugu dayaan in ay mugdina geliyaan weliba annagoo ku caawinay in ay iftiinka u soo baxaan? maxay u dhibtaa dhoola cadeynteena iyo farxadeena annaguna aan ugu shaqaynaa farxadooda ama aan ugu talinaa in ay farxaan? maxay nolosheena u soo galaan iyagoo farxad iyo wanaag noo muujinaya weliba iyagoo dana gaar ah wato inaguna aan ugu soo dhaweynaa si wanaagsan ay farxad ku dheehan tahay kadibna ay inoo dhaawacaan ayna uga baxaan nolosheena iyagoo faraxsan misna ku faraxsan dhaawacyada iyo dhibaatooyinka ayna gaarsiiyeen amaba ay inoo geysteen. maxay isugu dayaan farxad weliba aan haysano inay murugo u bedelaan? maxay isugu dayaan tallaabooyinka aan qaadayno inay hakiyaan ama ay joojiyaan ayna ugu xumaanayaan horumarkeena haddana ay u jecel yihiin niyad jabkeena? maxay nooga dhigayaan kuwa dadka oo dhan ka shakisan ama ka cabsanaya sida iyaga oo kale inay dhaawacaan? maxay noogu kalifayaan ama ay inoo gaarsiinayaan xaalad aan dadka oo dhan ka fogaano oo aan kali socod noqono? maxay isugu dayaan inay dhaawacyadeenu faagfaagaan xitaa markaan murugadeena ku qarinayno dhoola cadaynta si aanan loo daalacnin waxa qalbiyadeena ahaaday? maxay wanaag weliba aan samaynayno ay xumaan ugu bedelaan? maxay mar weliba noogu eedeeyaan qaladaad aanan ku lug lahayn ama aan geysanin? maxay wanaagyadii aan u samaynay oo dhan xumaan uga abaalmariyeen? haddaba shakhsiyaadka qaar wayna dhaawacayaan iyagoo isku dayaya inay wax walba naga baabi'iyaan si aan u niyad jabno oo howlaheena oo dhan aan u joojino, balse inaga ma nihiin kuwa iyagu ay bedeli karaan dhoola cadeyntooda, fikradooda, waxqabadkooda iyo horumarkooda intaba. waxaan nahay kuwa mar waliba dhoola cadeynaya oo faraxsanaan doona horeyna u socon doona ilaa ay ka gaaraan hadafkooda insha Allah. dhibaatooyinka iyo dhaawacyada ayna gaarsiinayaanna waxaan ku noqon doonaa kuwa adag oo u dhabar adeega caqabadaha iyo imtixaanaadka nolosha. iyaguna way soo laaban doonaan inagoo sidii hore aan u soo dhaweynaynin aan fursad ugu siin doonin inay mar kalena dhaawacaan iyagoo ku faraxsan horumarka iyo guulaha aan samaynay weliba inagoo aan u mahadcelinaynin. ugu dambayn ha noqonin mid ay dadku wax waliba ka bedeli karaan ama ay saameynayaan fikradaha qaldan ee dadka kale ka yimaada noqo mid horey u socda howlihiisuna aanan joojinaynin dadka kale fikradooda, waayo muhiim ma ahan dadka oo dhan inay isku fikrad noqdaan. muhiimadu waa inaad ku faraxsan tahay waxa aad wado aadna horumar ku gaari karto. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.